بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka shaqeynaynaa maadada physics-ka ah ee part 3 su'aalaha calculation-ka ah su-aasha sideed waxayna leedahay waxaa waaye gaarigan problem baa gaarigani ka hadlaysaa gaarigan cufkiisa ayaa wuxuu gaarayaa 6,200 oo kilogram 6,200 oo kilogram waaye maxaa lagaa rabaa marka calculate waxaad xisaabisaa it is weight culeyskiisa in air marka la joogo take acceleration due to gravity cufis jiidadkana waxaa u qaadataa 10 meter per second square 10 meter per second square u qaadaa lagu yiri ay given maxaa haysanaa leenahay given maxaa haysanaa waxaan haysanaa mass oo ah cuf oo ah 6,200 oo kilogram haysanaa waxaa kaloo haysanaa acceleration due to gravity oo ah 10 meter per second square waxaana laga rabaa naga maqan weight ayaa naga maqan weight inaan soo saarnana laga rabaa weight maxaa lagu helaa marka weight waxaa lagu helaa masska oo lagu dhiftay acceleration due to gravity waxay la siimid tahay 6,200 oo kilogram oo lagu dhiftay 10 meter per second square weight wuxuu la mid yahay 6,200 haddii 10 lagu dhifto waxay noqonaysaa 62,000 oo kilogram meter per second square-na waxaa waaye newton weight waxaa lagu cabiraa newton lagu cabiraa marka waxaa soo baxaysa 62,000 oo newton soo baxaysa su-aasha sagaalaad maxayna leedahay saacadda gacanta oo wareega samayso tifka wareejisa waxaa la yidhi waxay wareegtay 1 complete revolution hal wareeg oo dhammaystiran 2 baa loo qaadanaa in 60 second waxayna ku qaadatay 60 second ay ku qaateen bal 60 ila biqsi waxaad xisaabisaa angular frequency of the arm rakaad xagleedka ay leedahay saacaddaas saacadda waatana hal wareeg oo dhammaystiran ay samaysay marka rakaad xagleedka laga rabaa maxaa lagu siiyey marka waxaan leenahay revolution one revolution oo ay saacaddu samaysay ayaa wuxuu la mid yahay 2 by rad uu la mid yahay sidoo kale timeka ay ku qaadatana wuxuu la mid yahay 60 second ayay ku qaadatay waxaa laga rabaa markaas angular frequency waxa loo yaqaano omega ayaa laga rabaa waaya omega maxaa lagu helaan leenahay omega waxaa lagu helaan leenahay 2 by frequency lagu helaa oo la siimida 2 by frequency wuxuu u dhiganyay waxaa loo yaqaano 1/t ayuu u dhigan yahay 1/t ga amaga frequency ku bedelo 2 by loo qaybiyey t ayay noqonay meesha amaga 2 by loo qaybiyey t waxay la siimid tahay 2 by soo qaado by waxaan leenahay waa 3.14 loo qaybiyey t na meeqa waay 60 waayaan leenahay calculator soo qaado waxaa leedahay 2 lagu dhiftay 3.14 waa 6.28 equal 6.28 loo qaybiyey 60 intaan 60 u qaybi loo qaybiyey 6 equal mugaa tiraahid 6.28 ku celi 6.28 loo qaybiyey 60
waxaa soo baxaysa 0.104 6 ka dambaysa u buuxi 5 rad per second marka omega waxaa soo baxaysa iyadana 0.105 rad per second aa soo baxaysa sigan su-aasha tobnaad maxayna leedahay find waxaad heshaa intensity level for the sound wave heerka itaalka jabaq hirka jabaq oo itaalkiisu uu yahay 4 times 10 to the power negative 6 watt per meter square intensity level aa laga rabaa intensityna waa laysiiyey waa yahay aan galna marka maxaa haysanaa given aan dhahno maxaa haysanaa given de waxaan haysanaa intensity waa haysanaa oo ah 4 times 10 to the power negative 6 watt per meter square waxaa constanti ah asigane waan isbedelin threshold intensity wax la yidhaaho oo lamida 10 to the power negative 2 alif watt per meter square waxaa laga rabaa maxay yihiin marka waxaa laga rabaa intensity level aa laga rabaa intensity level ayaa laga rabaa intensity level maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa 10 decibel log intensity oo loo qeybiyey threshold intensity intaan waxay la mid tahay 10 decibel log soo qaado log intensity kore waxaan haysanaa waa 4 times 10 to the power negative 6 watt per meter square la hoos dhigay threshold intensity wax la yidhaha jiro 10 ku jibaaran negative 2 alif watt per meter square ah meeshaan mugii la joogo waxaa isla baxa muga watt per meter square iyo watt per meter square jibaarkan kor u wareegayaa intensity level waxay la mid noqonaya marka waxay la mid noqonaysaa 10 decibel log haye jibaaradan kale gooy 12 negative kor haday tagto balaasi ku tegay waa 4 times 10 to the power 6 plus intaasaan calculator gelinaynaa marka intaasaan calculatorka gelinaynaa noo soo qaad waxaan leenahay 10 log waxaan leenahay 4 times 10 to the power 6 waxaa soo baxa 66 soo baxayso waxay la mid tahan leenahay marka 66 decibelay la mid tahay su-aashaas intensity level waa 66 decibel halkaas u gudbaynaa su-aasha 11aad waxaa la yidhi the primary current in the transformer is 20 ampere qulqulka dhinaca primary ka jira transformer waa 20 ampere haddii dhinaca primary-ga duubkiisa uu yahay 200 turns 200 oo duub fiilada duubkeeda waa 200 oo duub dhinaca secondary-ga coil fiilada secondary-gane haas waxay leedahay 600 turns 600 oo duub ay leedahay as shown in the figure below sawirkan hoos ka muuqda dhinaca waa primary fiiladan waxa waaye waa 200 oo duub ay leedahay current-ga fiiladan dhex marayana waxa waaye 20 ampere dhinacan secondary-gana 600 oo duub ay leedahay current-ga dhex maraa laga rabaa dhinacan current-ga dhex maraa laga rabaa su-aasha markeera waa kana what current flow qulqul hadda intee leeg baa maraya secondary coil duubka secondary-ga oo dhinaca secondary-ga jira waaya halkaan kee marka waxaan haysanaa waxa loo yaqaano
primary current oo loo yaqaano waa 20 ampere. sidoo kale waxaan haysanaa n number of turns oo primary ah waa 200 oo turn. sidoo kale waxaan haysanaa number of turns in secondary oo ah 600 oo turn. waxaa naga maqan current maraya dhinaca secondary-ga. current-ga maraya dhinaca secondary-ga naga maqan. qaacidadoodii maxay jirta marka? waxay ahayd number of current in secondary loo qaybiyo number of current in primary waxay la mid tahay number of loops in primary la hoos dhigay number of loops in secondary. waxaa samaynaysaa markuu bedelo equal dheh kan waa lay diray soo qaado, kan waa lay diray soo qaado, la hoos dhigay primary meeqaan haystaa 20 ampere equal dheh n oo primary meeqaan haystaa 200 la hoos dhigay dheh n oo secondary meeqaan haystaa 600. halkaas markay taagan tahay waxaad samaynaysaa marka eber iyo eber isla baxaano kadib inta lagu qaybi waa 1 intana lagu qaybi waa 3 halkaas waxaa iga soo baxaysa marka number of current in secondary oo loo qaybiyey 20 ampere inay la mid tahay 1/3 cross multiplication isticmaal. 1kan wuxuu ku dhacaa 20 3 waxay ku dhacaysaa kan. waxaa soo baxaysa marka 3 current 3 oo ku dhacsan current in secondary inay la mid tahay hal haddii 20 lagu dhiftana waa 20 ampere. meel walba 3 u qaybi intana 3 u qaybi isla baxaano. ugu dambeyn current in secondary waxay la mid tahay 20 haddii 3 loo qaybiyo calculator soo qaada qaybi 20 loo qaybiyey 3 6.6 ay naqaymaano 6.666 waxa waaye waa soo gaabi waa soo koobi kartaa waa 6.6 todobo. sababta calaamadan waxay tusinaysaa 6.666 oo tiro badan sii socoto. marka waxaan leedahay 6.67 ampere waa kaasaa marka 6.67 ampere. su-aasha waxay aheeday su-aashii 11 12 keen su-aasha 12 maxaana la yidhi an electron is accelerated by the potential difference of 2000 volt. electron ayaa wuxuu ku sameeyey karaarasho potential difference soo dhex maraya potential difference gaaraya 2000 oo volt haddii electron charge electronka chargigiisu hadduu yahay 1.6 times 10 to the power negative 19 coulomb. what is the electron energy? waa maxay electron energy-ga? waa maxay electron energy-ga in joule number A iyo number B in electric volt. waayahay waxaan haysanaa marka waxaan haysanaa volt oo ah 2000 oo volt ah potential difference ah 2000 oo volt. potential difference V noo la soo qaataa BD noo la qaataa. waaya sidoo kale waxaan haysanaa Q oo charge ah oo lamid ah 1.6 times 10 to the power negative 19 coulomb. negative 19 coulomb energy aa layga rabaa. energy maxaa lagu helaa marka? potential difference oo lagu dhiftay charge yaa lagu helaa. potential difference maxay la mid tahay? waxay la mid tahay 2000 oo volt
lagu dhiftay chargena wuxuu la mid yahay 1.6 times 10 to the power negative 19 coulomb. haddii la isku dhifto maxaa soo baxa marka 2000 lagu dhiftay 1.6 waxaa soo baxaysa 3200 maxaa soo baxaysa 3200 times 10 to the power negative 19 coulomb. volt iyo coulombna waa joule ka imaana. scientific notation u qor marka haddii scientific notation loo qoro qormo saynis boontiga 1 2 3 uu soo gela intana 3 ka jarmayso. energy waxay la mid tahay marka 3.2 times 10 to the power inta 3 ka jarmaysa negative 16 joule ay noqonaysaa. waa kaasaa number A jawaabtu waa kaasaa. number B electrovolt ahaan u qor. electrovolt wax kale maahan waa halbeeg loo isticmaalo energy halbeeg kale joule markii laga tago halbeeg kale waaye. marka 1 electrovolt wuxuu la mid yahay 1 volt waxa waaye 1 electron volt hal electron oo dhex maraya tusaale ahaan hal volt uu la mid yahay. marka waa iska fududahay electrovolt markii energy loo qori tago waxay noqonaysaa 2 meeqa volt haysanaa waa 2000 volt meesano 2000 electrovolt bisaan qorayna is laba kaasaa intaas le u qoraysaa kaas electrovolt sidaas ugu bedelaysaa wax dhib leh maaha kaas. su-aasha 13 maxaa laga rabaa calculate waxaa xisaabinaysa equivalent resistance caabiga u dhigmaya caabiga oo totalka amba equivalentiga ah showing below sawirkan waa iska muuqda totalkiisa caabiga amba resistancega u dhigma sheeg resistancega u dhigma sheeg resistancega u dhigma sheeg. caabigan wuxuu u xiran yahay marka wuxuu parallel u xiran yahay parallel u xiran yahay. mar hadduu parallel u xiran yahay marka waxaan leenahay waayahay waxaan leenahay 1 over resistance guud wuxuu la mid yahay 1 over resistance 1 lagu diray 1 over resistance 2 lagu diray 1 over resistance 3 waayahay resistance 1 waa 2 waa 1 over 2 ohm waaye 1 over 2 ohm plus resistance 3 waa 6 waa 1 over 6 ohm plus resistance 3 waxa waaye 2 alif 1 over 2 alif ohm waaye is waxaan haysanaa 2 6 2 alif LCM u soo raadi marka 1 over r waxay la mid tahay 2 alif ohm LCM kor wuxuu noqonayaa 2 alif ohm 2 alif qaad 2 u qaybi 6 times 1 waa 6 plus 2 alif divided by 6 26 u qaybi waa 2 hal ku dhifo waa 2 plus 22 u qaybi waa hal ku dhifno waa 1 isku dar kor waa 9 divided by 2 alif ohm bis isdhaaf isugu dhifa marka 1 of r waxay la mid tahay 9 of 2 alif 9 ka intuu ku dhacaa 1 kana kor ku dhacaa marka 9 r haddii lagu dhifto waxay noqonee waa 9 resistance 1 haddii inta lagu dhiftana waa 2 alif ohm 2 alif ohm inta u qaybi 9 intana u qaybi 9 isla baxaano ugu dambeys r waxay la mid tahay 2 alif
divided by 9 1.33 y waa 1.33 waa iska soconaysa soo koob 1.3 waxaa leedahay oo ooma 1.3 oo ooma y 1.3 oo ooma y su-aashaas waxay su-aasha 11 su-aasha 14 su-aasha 14 waxaa lagu yiri arday qaba cudurka loo yaqaano myopic eye ayaa waxaa lagu isticmaalay maraayadda loo yaqaano concave lens u isticmaalay ookiyaalaha loo yaqaano haye focal lengthigoodan waxaa waaye 15 centimeter maraayaddaas dhererka kulmiska ay leedahay waxaa waaye 15 centimeter. What is the power of the lens? powerkeedu muxuu noqonayaa ma plus mise waa minus? concave haddii la yidhaho horta focal lengthigu waa minus. concave haddii la yidhaaho focal lengthigeedu maxaa waaye minus. is waxaa haysanaa muga focal length waxaan haysanaa 15 centimeter maadaama mitir oo ka shaqeeya meeshaan centimeter uusan ka shaqaynin waxaan leenahay boqol u qaybi inta boqol u qaybi waa 0.15 mitir waayahay marka intaanay noqonay focal length maxay noqonay marka focal length waxay noqonay concave maadaama iyo minus marka 0.15 mitir oo minus power maqan power maxaa lagu helaa power waxaa lagu helaa amba uu la mid yahay hal loo qaybiyo focal lengthiga power wuxuu la mid yahay marka hal loo qaybiyo focal lengthiga meeqa minus 0.15 mitir intaan u qaybi calculator soo qaadee hal loo qaybiyey 0.15 waa 6.6 lixaad soo qaabanaa daran waa 6 oo minus 6.6 maadaama soo laabanayso 67 diopter d muga ugu dambeyn maxaa soo baxa powerkiisu waxay noqonaya minus 6.67 diopter markaasaa d waa halbeeg diopter la yidhaa su-aasha 15 ugu dambeysa su-aalaha midda ugu dambeysa waxaana yidhi 20 centimeter straight wire fiirdhirkeedu gaarayso 20 centimeter ayaa movies at the constant speed of 5 meters per second perpendicular to the magnetic field strength at 0.004 Tesla. fiirdhirkeedu gaarayso 20 centimeter ayaa waxaa lagu dhaqdhaqaajiyey xawaare joogto ah oo gaaraya 5 meter per second iyadoo ku qotonta magnetic field oo awooddiisu ay tahay 0.004 Tesla. su-aasha waxaa la weydiiyey marka a b ay leedahay su-aasha eeda waxaa la weydiiyey marka how much induced electromotive force is generated in the wire emf amba electromotive force meesha ka dhalan doona imis ayuu la egyahaa la weydiiyey maxaan haysanaa l ayaa laysiiyey oo fiirdhirkeedu gaarayo 20 centimeter mitir u bedel boqol u qaybi 0.2 mitir waaye waxaa kaloon haysanaa velocity oo ah 5 meter per second sidoo kale waxaan haysanaa magnetic strength oo ah 0.004 Tesla. waxaa maqan yaaba marka waxaa waaye electromotive force yaa maqan electromotive force amba emf waaya emf maxaa lagu helaa marka electromotive force oo iidan la soo gaabsho waxaa lagu helaa l lagu dhiftay v
lagu dhiftay b ayaa lagu helaa l lagu dhiftay v lagu dhiftay b intaan waxay la mid tahay marka l meeqa waa l waxaan haysanaa 0.2 meter times v maxaa haysanaa 5 meter per second times b maxaa haysanaa 0.004 taslaan haysanaa emf oo electromotive force waxay la mid tahay marka calculator soo qaado isku dhifa marka intaan 0.2 times 5 times 0.004 maxaa soo baxaya marka waxaa soo baxaya 0.0 waxaa soo baxaya 0.004 emf ama electromotive force waxaa lagu cabiraa volt ayaa lagu cabiraa maadaama waa electromotive potential difference waa potential difference maadaama uu yahay volt ayaa lagu cabiraa su-aasha labaad oo ka farcamayso b waxaa lagu yiri if the wire has a resistance haddii fiiladu ay leedahay caabi gaaraya 0.25 ohm what is the magnitude of the current passing through it waa maxay danabka dhex maraya meeshaas su-aashan labaad resistance yaa soo kordhisa r soo kororta r meeqa waaye waa 0.25 ohm waaye haye maxaa kaloo haysanaa electromotive force in haddaan soo saaran oo e ah oo ah 0.004 volt ah 0 volt aan soo saarna hadda maxaan idinka rabaa marka current-yaan idinka rabaa qulqul current-igu inta uu la eg yahay ayaa la iska rabaa current waxaa lagu heli jiray potential difference loo qeybiyey r potential difference booskeeda electromotive force ay ugu jiro maanta marka waxaa lagu helaa marka electromotive force loo qeybiyey resistance electromotive force waa 0.004 volt loo qeybiyey resistance-guna waa 0.25 ohm isu qeybi marka 25 ohm waxaa isu qaybisaa 0.004 loo qaybiyo 0.25 ohm maxaa soo baxa marka 0.016 aa soo baxaya current-iga meesha dhex mara muxuu la mid yahay marka wuxuu la mid yahay 0.016 ampere volt per ohm ayaa ampere volt per ohm ayaa waxay yihiin ampere halkaas waxaan ku soo gebagabeynaynaa part 3 physics calculation examkii wasaaradda waxaan leenahay nasiib wacan ardayda gelaysa imtixaanka nasiib wacan